السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخيرت aad baan salaamay kusoo dhawaada channelkeena oo walaalkan Cabdi Xasan. Maanta waxaan isku dayaa inaan sharaxo routerka uu teleegu bixiyo. badan korda dadka aad bay isula dhiman yihiin gaar ahaan shacabka jooga nool marka configuration lagu sameynayo routerka ama internet xaafad la gelinayo ama meel kale la gelinayo dad badan oo waxa jira configuration ka aan garanayn. configuration kuna waa wax easy weeyaan, wax yacni dad loo sugo ama qof u sugta maaha, waa wax adigu 10 daqiiqo 5 daqiiqo aad ku sameysan karto haddii aad computer taqaan iyo haddii aadan aqoon. kaliya waxaad u baahan tahay inaad haysato cable iyo xarig cable internet cable oo marka hore routerkaaga la socdo markay ku siinayaan iyo computer aad geliso. even wireless-ka intaad connection ku xidho waad ku sameyn kartaa. hadda waxaan hadalkan ku dheereynaa guud galo marka koowaad xarig ayaan gelinayaan oo xarigii baan geliyay oo ka xarig halkaaga muuqdo cable-ku xarigii ay ku jiraan. marka waxaan rabaa inaan ogaado marka koowaad IP-gayga aan ku gali lahaa routerka setting-giisa. marka siyaabo badan oo ogaan kara jira, laakiin ta ugu dhibka yar ee marka computer isticmaalsaad ku ogaan karto waxa weeyaan inaad dhahdo cmd aad kadibna enter dhahdo. wax yar baan ka iloobay. marka hore waxaad eegaysaa routerkaaga xariga markaad geliso internetka lagaaga soo talaalay ee xaafadaada soo galay boxka lagaaga soo talaalayo ping baa ku sameynaysaa inay gateway-ga isku xiran yihiin. so waxaan dhahnaa ping 10.148.48.1 marka kan waa gateway-ga teleega weeyaan. waxaa leedahay aniga ka muu naga dhaxay haddii halkan ay ku soo saarto reply waxa weeyaan there is a connection ma ka dhaxay laakiin waa unreachable ma gaarayo connection-ki. by the way way isku xiran yihiin haddana waxaad sheeganayn kartaa IP-gaaga adigu teleegu siiyay ka ugu muhiimsan ee inaad haysato ay tahayna waa IP-gaaga. markasta IP-gaaga waa inaad adigu haysato wayna ku qorayaan waa inaad iyaga weydiiso. hada 10.148 kan iskuga mid ma noqonayno sababtoo hadaad tasti karayso kan kuma soo saarayso sababtoo aniga kayga weeyaan. marka kaaga ayaad halkan gelinaysaa markaad tasti garaynayso. soo kana sidoo kale reply laakiin unreachable buu leeyahay samaartid. waxaan sameynayaa marka ciladu miyay tahay routerka badanku waxa weeyaan 192.168 mid ka bedelan uu jira laakiin badankoodu waa sidan weeyaan. kana is okay kan marka waxba kama khaldana. marka waxaan leeyahay clear baan iska leeyahay halkan marka routerkayga gateway-giisa seen ku ogaadaa markaan cmd-ga joogo weeyaan su'aashu. marka waxaad ku ogaan kartaa inaad halkan ku qorto ip.config/o enter baad dhahaysa. halkan marka gateway default gateway waad aragtaa waxa weeyaan 192.168.1.1 marka kana copy dhahsanaysa waxaad taabanaysaa control iyo c isla taabanaysaa copy dhaho. tusaale ahaan halkan imika tan paste control iyo v dhaho ii copyaysan yahay. kadib gateway-gayga waan helay. gateway-gaaga noocyo badan oo ku heli kartaa jirta laakiin easiest ayaan isla ka weeyaan maadaama cmd ku dhex jirnay. marka halkan ayaad ku paste garaynaysaa ama markii aad hesho wuxuu doonay haada halkan ayaad ku qori intaad dusha ka qorto 192 anigu ii soo qoran yahay waad aragtaa 168.1.1 kadib enter baad leedahay. marka halkan waxa weeyaan waa halkii laga galiyay routerkaaga setting-giisa. marka halkan challenge yar baa jira waa inaad login ku sameyso. haddaba haddii aadan routerkaaga hore aadan u bedelin wuxuu noqonayaa laba mid inuu username-ku admin noqdo password-kuna admin noqdo ama inuu username-ku user noqdo password-kuna user noqdo. waa labada mid badankana admin bay badan yihiin labadooda. laakiin haddii la bedelay uu qof bedelay uu password-ka wax kale ka dhigay qofkaasi wuxuu ka dhigay bay noqonaysaa. marka tusaale ahaan anikayga imika user-ku waa admin password-kana waan bedelay marka kan ka dhigay waan ka dhigayaa. marka hadda waxaan joogaa setting-gii routerkayga ayaan joogaa. routerka markaad saan usoo gasho sidaan ku soo baxaya. marka routerada waa laga yaabaa setting-gooda inay kala duwanaadaan laakiin waxa ay qabanayaan waa isku mid. halkan network baan ku dhufanayaa. marka network ku dhufto halka waxaan leeyahay quick setup ayaan ku dhufanayaa. markaan quick setup ku dhufto halkan waxaa lagu leeyahay new connection name. marka routerkayga inuu cusub yahay baan ka soo qaadayaa connection cusub ayaan sameynayaa. waxaan leeyahay
magaca ayaan bixinayaa maxamed baan leeyahay, connectionkayga maxamed ayaan bixi. halkan tusaale ahaan imika haddaan wax yar malooba, haddaan halkan google dhaho, google ima shaqeynayo aniga, network ima shaqeynayo. haddaan youtube dhaho ima shaqeynayo. maxaan dhahaa facebook.com ma shaqeynayo, wax internet ii shaqeynayo totally ma jiro. sababta routerkii configuration kuma samaysna, wuu cusub yahay oo kala weeyaan. marka halkan connectionkii setup markaan imaado, connectionkii maxamed baan bixiyay, create VPI and VCI. markasta waxa weeyaan labadan, VPI du waa 8 weeyaan, VCI na waa 81 weeyaan. halkan type-ka ay ku qoran tahay, haddaad bridge dhahdo totally wuxuu kaaga dhigayaa bridge buu ka dhigayaayo routerka yacni kuma shaqeynayo, kuma siinayo option badan, laakiin root-ka ayaad ku daynaysaa. halkan linkita BB da ku qoran tahay, IP baad ka dhigaysaa iyadana. halkan version-ka ku qoran tahay, weli inaga version 6 inama soo gaarin, marka IP version 4 kaasaan ku daynaynaa. halkan waxaa laga yaabaa dynamic wax ka noqoto, laakiin inaga waa static. marka aan ka hadlayno telega Ethiopia, Ethio Telecom waa static weeyaan. halkan marka waxaad gelinaysaa IP-ga aad adigu khaasatan gaarka u leedahay ayaad halkan gelinaysaa. IP kale ma gelinaysid, dadku intan kale oo dhan way ka wada simeeyeen, laakiin IP-ga adiga ayaa khaas u leh. waa ka internetka ku soo dhacay, ka kugu register gareysan, ka magacaaga ku save gareysan weeyaan. inta megabyte, inta MB aad isticmaalayso ay ku qoran tahay. waad fahanteen beerata. marka halkan waxaan leenahay anikayga ayaan gelinayaa, idinkana kiina ayaad gelin doontaan. kayga waan geliyay. halkan subnet maskiga, subnet maskiga dhammaanteen iskaga wada mid ayaan nahay. xoqasa 255 haddana halkan markaad marayso waxaad qori kartaa 192 na waad qori kartaa, 140 na qori kartaa, 240 na qori kartaa. anu markaa 192 baan iska qoranaya, 192.0 baan leeyahay. adigu halka waxaad ka dhigi kartaa 240 na ka dhigan kartaa, kana waad ka dhigan kartaa, labadaba kugu shaqeynaya. gateway-ga teleguna waxa weeyaan 10 148.481. haye halkana marka imika inta gelino internet ku shaqeynaya, laakiin hal nooc ku shaqeynaya. maybe waad aragteen marar badan routerka in configuration internet ku shaqeynaya, haddaad VPN ku xidho internet ku shaqeynaya, laakiin bila VPN ma dhaqaaqay. marka haddaadan labadan DNS serverka aadan ku haynin, DNS server 1 iyo 2 haddaadan ku haynin, saa weeyaan inaad VPN ku xidho mooyo kuma shaqeynaya. marka inagana toos noogu shaqeyn rabnaa, waxaan leenahay 10 contonation 96 166 baan leenahay. waa ka server 1 ka weyn. kan kalena waxa weeyaan 4222. so configuration-ka telega marka ku yimaado xariga lagu geliyo la sameeyo waa intan weeyaan. intan waa 1 minute ayaad ku sameyn kartaa. waa halkan waa connection magac bixisato, waa VPI-ga oo 8081 aad ka dhigto, halkan root ka dhigto, type-ka link type-ka IP ka dhigto, IP version-ka IP version 4 ka dhigto, static oo halkan ka dhigto, enable NAT ka markasta inaad enable dhahdo weeyaan iyadana oo click taad siiso. halkanna waa IP-ga aad adigu khaasatan gaarka u leedahay. halkanna waa subnet maskiga. subnet maskiguna dhammaan weyn ka wada isbanay, wixii IP-ga ka duwan meesha dooni joog, intaas way ka wada sameeyeen dadku. markaan ku leeyahay meesha dooni joog adduunka kama wado, Ethiopia ayaan ka wada. marka inta waan ka wada simanna. marka intan qof kasta uu sameyn karaa weelata. haddii ay adag tahay oo ama aad leedihiin kan ma isticmaalo, I have another one, ku kala waan haystaa router kale, I'm gonna make video, ku kala video kale waan ka sameyn karaa. so you can waxaan commentiga ayaad insha Allah ku qori doontaa. marka waxa telegaba maanta oo dhan ay dadka ka sugaan inta weyn. marka next baan leeyahay. marka configuration-kaygi waan dhameeyay, connection maxamed baan bixiyay, wixii oo dhan waan dhamaystirtay. marka next baan leeyahay, halka hoose next baan leeyahay. internet-kaygi aan markii hore ii shaqeynayn, marka hadda wuxuu ku qasbay inuu shaqeeyo. sababta already configuration was. halkan waa wireless-ka magaciisa, password-kii, waxyaalaha weeyaan. marka ani already waxaas way waxaysan yihiin. idinkana haddii aad rabtaan cashar kale ka sameeyo kale wireless-ka magacaaga soo loogu sameeyo, password-ka loogu bedelo, video suuna aad ugu dheeran dadkuna uga caajisin, yani waxaan ka sameyn hadda comment-ka igula wadaaga insha Allah inaan video kale ka sameeyo isku day hadii la yiraahdo. marka hadda connection-ka marka hore ma shaqeynaa, haddaan hadda Google dhaho
waa qasab inuu shaqeeyo ku qasban yahay haddaan youtube dhaho ku qasban yahay inuu shaqeeyo sababtaa configurationkii oo dhan waan dhamaystiray. haddaba markii hore maxayna lahaa markaynu halkan joogno waxayna lahaa unreachable so inama lahayn maxaan dhahaynaa cls waxaan dhahaynaa ping 10.148.1 see marka hore unreachable bayna lahaa laakiin hadda yani waa ku dhameystiran yahay wayaan wax kasta. so waxaan aad u rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen router dambana aydan teleega isku dhibi doonin haddii la yidhaahdo. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantiin daawashadiina. channelku waa channelkeeni, subscribe-ta, like-ta, share-ta waa dhankiina. aad iyo aad baad mar labaad haddana ugu mahadsantiin daawashadiina.